السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهي قالي وشرفت لي أدبا إذن شعلهي إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو إلهي نهي إذن إلاليو ميال والبؤت كسوغنتهين ولا لهي قربها تشوغو إلهي وحاينك قبريايا إنو إلهي فتنت إيردبك إذن كإلاليو بإذن الله الكريم ولا لها قربها مرول محاود عيسى بالي وحاود عيا مرول با سوماليدو حيتر هذا مكلال مننك إذا جوجت معي الباحي لا هاي مننكو ذي مجوغان منن إسلامي ذي جوغان الله كو إلاليو الله نكو حفظه أولادنا الله هو إلاليو بإذن الله الكريم أيجي أولاده ذو فتنت يردبك بالله كإلالشو إلهي سبحانه وتعالى ساسا نقبريايا ولا لهي قربها تشوغو نوحرم هالكان إنا مانتا أغا هلا أرين حساسية ومالمهان براه بالشاه قادتي أنا حلقة هوري أرنتا أيضا وقاري لذن وحان إسلاها وحبا كمجران وحان أي داد كان بومبونينيان أيغا أيا بومبونينايو أيغا أيا ودوضو أمي وحكا جرين laakiin maanta ayaa ogaaday qaaliladan oo hadlayso abaayo qaaliladan ayaa maanta hadlaysay waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala qoys barakaysan ha idinka dhigo biidnillaahi kariim waayo sababtay tahay hadda iyada waa qoys waayo ayadii gabadheeda waa famil dhammaystiran oo buuxo raagi walaalkay isagana sidoo kaleeto waa aabihii dhalay gabadheeda even haddii labadan qof calafkooda dhammaaday xataa ma kala tegayaan mana kala harayaan waayo sababtay tahay ilaahi subxaana watacaala ubax qurux badan ayuu dhexdeeda ka beeray marka soomaaliya marka adinka dhanka xumaanta wax u fasiraysaan dadkan hadday wada joogeen soo lagama yaaba inuu calafka iyo qadarka intaa ku ekaa oy wanaag ku kala dhammaadeen oo labadan qof hadda uu wanaag dhex yaalo soo lagama yaabo wax walba dhanka xumaanta ayaa u fasirtiin dhanka xumaanta ayaana ka fiirisiin ma ahan inuu wiilku xun yahay ma ahan inay gabadha xun tahay qadarka iyo calafki ayaa dhammaan karo oo soo gabagaboobi karo naag la furayna meel lama fadhiisanayso waxna kama nusqaamsano waayo qaaliladan waa kiintaal koob la daray kolley ciddi fahmaysa ayaa fahmayso waa gabar yar micnahayga ayaan kala joodaa waa gabar yar qof weyn oo duqa maahan qof yacni dhalmadaayo ma ahan qof yacni muddo la qabiy oo weynaaday oo wax dhali waayo ma ahan alxamdulilaah waa gabar yar haddana ubax yaroo kala haysato maasha allah hadday kala dhammaadeen ayadii wadaadkeedana micnuhu ma ahan inay dambe laisku soo laabaneen micnuhu ma waayo sababtay tahay ubax yar oo qurux badan ayaa dhexdooda yaallo ubax yar oo qurux badan oo maanta hanti kasta haddii lagu raadiyo ayna cidi heli karin ayaa dhexdooda yaallo dhibka anagana haysta soomaali haddaan nahay aaminimo soo heliya hadda kahor waxay tiri waa la furay waa la qoraa waa la guursaday waa la qoraa maxaa lagu furay laguma dhahayay tiri waa sax bilxaqiiq waay arrin jirta waay qof walbana sharaftiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa horkacdo oo meel walba geyso qof walbana dabiicadiisa ayaa dadna ku darta dadna ka reebto sida aan wada ognahay qaaliladan waa gabar afgaaban waa gabar akhlaaq leh waa gabar wanaagsan waa inta aan ka arkay muuqaalkeeda kore anoon si dhaba u aqoonin ayaa haddana social media ku wada jirnaa qof walba wuxuu yahay waa fahmi kartaa waayo ilaahay caqliyad buuna siiyey alxamdulilah aan wax ku dareenno aan wax ku fahno waxaa la hadlayaa soomaalida wax buunbuuninayso gabadhii buu furay naa kalaa wadwada baryahan naa adiga ninka shala abaayo soo xumeeyey adna beri buu ku xumaynayaa adiga ma goobjoog baad u ahayd markuu xumaynayey ama dadkan ay isxumaynayeen ma goobjoog baad u ahayd maadaa dhexdood taagnaa waa may ha ku dambaabin hahee ha ku dambaabin waxay ku kala tageen adiga ma ogid waxay isku khilaafeen adiga ma ogid carab iyo ilka iskugu dhow way isqoomaan boqolaalka soomaaliyeed oo gabdho oo quruxda badan oo wanaagsan oo la furaya ayay qaaliladan qayb ka tahay ma ahan qaaliladan haddii la furay inuu hoog u galay ma ahan no may mideeda kale waxaan isdhiilaa maanta ugu yaraan qaaliladan ayadoon ubad haysan hadday ninkeeda kala tegi lahaayeen waxaa isdhihi lahaa way fikiraysaa way probleemaysaa waa keligeed laakiin hadda alxamdulilah waa qoys buuxo oo kaamila ubaxaas ilaahay subxaana watacaala ma kala qariyo ayada iyo gabadheeda ilaahu ha kala qarin ilaahu ha kala wadin cimri inay isla qaataan ilaahay subxaana watacaala ha u kaso kuwo kale oo badan oo baariyaalo oo wanaagsanna allaha ugu irsaaqo ugu daro biidnillaahi kariim walaalkeed hadduu calafkoodii kala dhammaaday waa gabadheeda aabaheed ma kala dhammaanayaan
waa gabadheeda aabaheed, waa gabadheeda abtirkeeda, ma kala dhammaan karaan. marka soomaaliyey waxaan aad buunbuuninaysaan oo xumaantee oo didinaysaan ilaahay ka cabsada iska dhaafa. dadka walaalaha laba qof oo wallaahi soomaalida social media ku jirta daatiin, laba qof oo isjecel xataa adinku waa isku dirtaan, waa kala wadaan, waa kala kaxaysaan. wallaahi maalinta qiyaamo meeshaan waxaad ka sheegi jirtay iyo waxaad ka dhihi jirtay, wallaahi maalinta yowmal qiyaamo waa lagu weydiinayaa. ilaahay ka cabsada, ummadda ha caayina, ummadda cayda ka daaya. kuwo waxaa arkaya maanta wiilkaa islaameed caayayo. maxaa u caayaysaa? maaduu ku qabii, maaduu ku furay? waa may. gabadhan walaashiisa waxay ku kala tageen miya adigu goobjoog u ahaydoo taagnayd? waa may. dhanniga iska daaya. qaliladan iyo ninkeeda xataa markay isqabeen kuma aysan jirin naagaha iyo nimanka akhlaaq darada social mediaha dhexdiisa la imaanayo oo isku dhegdhegayo oo isku dhunkanayo oo isku salaaxayo kuma aysan jirin. dad sharaf leh oo akhlaaq leh oo wanaagsan oo qoys soomaaliyeed oo wanaagsan ayay ahaayeen. alxamdulilaah. haddii kala togooda uu xaqiiq yahay uu dhab yahayna wiilkaana ilaahay subxaana watacaala wax wanaagsan ha ku irsaaqo, qaaliladanna ilaahay subxaana watacaala wax wanaagsan ha ku irsaaqo. waa laba qof oo soomaaliyeed, waa laba qof oo islaama, waa laba qof oo wanaagsan, waa laba qof oo dhallinyaro wiilkuna micnaheeda maahan inay kala tageen inuu wiilku xun yahay ama gabadha ay xun tahay, ma ahan. qaaliladan waa gabar walaasheena, gabdhaha walaalaheenoo la furaya ka mid tahay oo soomaaliyeed. ma hoogin, mana bi'in, mana khasaarin. caqliyad baa u korodhayso. naagta la furo oo garoobka caqli iyo maskax baa u korodho. markay gabadha tahay oona la guursan si ayna u fikirin ayay hadda u fikiraysaa. haddana markay hooyo noqoto uguma sii jirto. maasha allah. markay hooyo noqoto uguma sii jirto. wallaah markay hooyo noqoto way kasii fiican tahay. maasha allah. wayna kasii caqli badan tahay, wayna kasii fikir iyo maskax badan tahay markay hooyo noqoto. hooyo mar walba waa hooyo. maasha allah. walaasheen qaaliladan waxaan leenahay hooyo ayaa noqotay, horay u soco. dadka hadalladooda dhag ha u dhigin. inta wanaagsan kala bax, inta xunna iskaga tag. qof walba oo xumaan sheegana horumarkaada ha noqoto xumaataduu sheegay, horumarkaada ha noqoto xumaatada uu sheegay. ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaa adi iyo gabadhaada maasha allah qoys jiro oo joogo oo wanaagsanaado oo qurux badan inuu ilaahay idinka dhigo. kuwo kale oo wanaagsan oo barakaysan oo baaryaalana allaha kugu irsaaqo, kugu bajo, kugu daro biidni illaahi kariim. gabadhaada quruxda badanna ilaahay subxaana watacaala ha kuu daayo, isagaa raxmaan maanta wehel baa haysataa, reer buuxa ayaa tahay, famil buuxa ayaa tahay. hadallada xunxun oo dadka iyo wax magaratada ay dhahayaan dhag ha u dhigin, horay uga soco ayaan ku leeyahay walaashay. amarkan iyo taladan ilaahay subxaana watacaala ayaa iska leh. cid kale waxba kama bedeli karto, cid kalena waxba kama qaban karto. ilaahay subxaana watacaala wuu taliyaa, aadanahana wuu tubaaxaa. maamaa soomaaliyeed ba ahayd. ilaahay wuu taliyaa, aadanana wuu tubaaxaa. maamaa soomaaliyeed ba ahayd. marka waxaa idin leeyahay waqtiga ha idin qurux badnaado biidni illaahi kariim. walaashayna waxaan leeyahay ka duul oo horay u soco biidni illaah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wabilaahi towfiiq.